raacno kenya iyo annaga dal isuma dhiibin isumana haynin 63 markay qaadatay xurnimada declaration warqad ah ayuu ugu dhiibay ingiriiska حدودة كنت كيلا دكتي ونذا كدي وانقشان عبد الله عيسى محمد عوالة ليبان أي هجامين أيام دليجيشن كي سوماليات أو كمال الدين صالح أو سفير كي مصر سومالي وجوجي هاي جاي وهي جبرت تم تدعان يا رتي ررن ماشي الواركو هي هالجافلة إلى حدود سوماليا حدود أي سوماليا ما أنت شايفين يسوى راس مكسيكان ودار السلام يملون ده حسب بمباسا قندلك ماشي لقى جرو راس مكسيكان حدود بيناتك إنجليزك أو مصير أو كل شيء ما دام تلياني قال لقوسو عليي جيت أنا دي فوتشاريو قبل دي فوتشاريو إنه أوغارسيو طبعا برضو ولدت لحدكي لقو قاتل مدح بناني طبعا كاسنو قديم لقوسو عليي تلياني أيوم مسير دلاد حدود برينا لما جارو صورنا ومدان إثيوبيا أو كان فير مدة كيو أفر جن أجرتينا سداد رجل أجرتينا أو بحيي ورقد كلاريشنا أو دي بالجو مكانيات مدحويني مركز كو وهذا ما كيا إلى دعوة أو سببي مساري جد باوض هذلي دنكيجا كوكودا وانا ادو حمودي لقيمه غويسن جيد با يري مسار شريف شيخ احمد او مدحوينه انا عبد الرشيد او رئيس الوزراء نينك اللي يراده عبد الرحمن عبد الشكور iyo ibbi saddex afartan nin baa gaarsiiyay Kenya inay yiraahdaan dalka shidaal ka qodo 160 kilomitirna gal inay yiraahdaan inay maaragtay haddana ay yiraahdaan dawladda xudxudani aniga waa wada garanaysaan ummadda inta muuqaalkayga magacayga taqaano waxaan ay ragga ugu siniyarsan oo maarinka Soomaaliyeed ka shaqeey jiro maanta nool kuna sugan gobolada dhexe Hiiraan Admiral Khaliif Idris Usman Soomaaliga waxaan ay dacwadaas koow ninkii highlight gareeyay 12 bishii 2 Febraayo 1919 dacwadaas ninka highlight gareeyay oo ilaahay idinkiisa caalamka siiyay ayaan ugu horreeyay waxa ka soo qayb galay Muuse Nuur Amiin Allah raxmo oo agaasimo guud noo ahay gaadiidka badda iyo dekedaha waxa ka soo qayb galay Abukaata Talxo Professor Talxo Andhiila waxa ka soo qayb galay Abukaata Ilka Xanaf oo ahay 18 sano Andhiila Amiin 20 sano noo ahay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka badda Kenya markaas annaga ayayna hoos joogtay International Maritime Organization waxaan ka xukumaynay xamar bariga Afrika oo dhan marka arrintaas Kenya inay xudxudato Soomaaliya ama ay maxkamadda hadda saddexdaan nin baa u sababaha mana jirin dawlad qabatay iyo sharci qabtay waxaan leeyahay dawladda dhexe Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo horta mabruugan ku leeyahay waxaan idin leeyahay waan idinku mahad celinaynaa waxaana tiin dad la aamini karo laguna aamini karo dadka waxaan idin farayaa 3333 kilomitir way 12 bays oo min 300 kilomitir xisaabta kor ku qoran markii la kala jaro 12 bays oo min 300 kilomitir hal dhigo raadarada ranjigooda ilaa 500 mayl gaarayo in la dhiga ayaan soo jeedinaya in dawladda Turkiga hadda ciidamadeena dib u dhisayso iyo dawladda Masar oo hadda madaxweynaha Afrika ah in loo tago oo laga soo qaado gaadiid badan si loo helo coastal guard isla markaana raadaradii iyo baysaskoodii in si degdeg ah loo dhiso 3 birgeyr oo ciidanana in la dhiso 3 birgeyr oo ciidanka ah 5100 nin waa isku celcelin waxna waxay noqonayaan coastal guard waa in la helo 3 diyaaradood oo helicopter ah 3 diyaaradood oo helicopter oo maneuvering sameeyo in la helo si loo ilaaliyo xeebta Kenya waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan adeer ku farayaa sida ugu dhaqsaha badan ciidamada horta gudaha ku jira laga saaro economical demonstration warna hal la sameeyo dagaalka xidigaha dhaqaalaha qaadka baxayana hal la joojiyo waxa anaga iyaga xagooda naga soo galayana hal la joojiyo waxa anaga xageena naga gudbayana hal la joojiyo Soomaali weyn noolaanaysa intaas ayaan ku soo xiriyaa warkayga wabillahi tawfiiq